habeenkii iyo maalintii maxaa jiraba habeenkii maalintii dadku waxay qabsan karaan shaqooyin badan bay qabsan karaan laakiin habeenkii hawshu waa soconaysaa reerka gabadha ka dhalatay baa cunugaas kale bismillaahir rahmaanir rahiim walaal ku soo dhawo channelka dab jacayl official adigu magaca ku bilaabay walaal ku dhawaay magacaygu Cabdiqaadir Axmed bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh daawadayaal idin lahaantiinba meel kastoo daafaca caalamka kaga sugantiin iyo waqti waliba idin tahayba channelka daawanaysa waa dab jacayl official fadlan haddaa channelka ku cusubtahay subscribe sidoo kale muuqaalka haddii aad ka hesho like muuqaalkani wuxuu noqon doonaa muuqaal su'aalaha aan ku weydiin doono bulshada ku dhaqan magaalada ceergaamo aan ku sugannahay su-aashuna waxay odhanaysaa waqtigii casir jaahiliga ayaa waxaa dhacday in gabadh la wada siiyey laba nin isla mar ahaantana lagu yiri midowna habeenkii baad qabaysaa mid kalena maalintii sidaa la ajligeed ay gabadhii wiil dhashay wiilkii ay isku qabsadeen labadii qabiil ee ay ka soo kala jeedeen labada nin haddaba qof walba maskaxdiisa tijaabin doonaa hadda kii uu siin lahaa jawaabta su-aashuna waxay sax ku noqon doontaa bismillaahir rahmaanir rahiim abtii ku soo dhawo channelka dab jacayl official magacaaga cabdiqaadir su'aal baan ku weydiinaynaa waqtigii casir jaahiliga ayaa waxaa dhacday in layswada gabadh la wada siiyey laba nin midna lagu yiri habeenkii baad la degnaanaysaa oo habeenkii oo dhan baad qabtaa midna maalintii gabadhii wiil bay dhashay labadii qabiil ee labada nin ka soo kala jeedeen baa isku qabsaday bal keebaad adigu siin lahayd oo odhan lahayd kaasaa wiilka dhalay oo iskale labada qabiil sidee baad ugu garanaqlay labada qabiil waxaan u garanaqay lahaa maadaama ay sabal jaahili tahay reerka gabadha ka dhalatay baa cunugaas kale reerka gabadha ka dhalatay cunugaas kale iyaga waxba kuma laha maxaad ku sababayna waxaan ku sababaynayaa waa sac dibi boodo ninka dibi kale waxba kuma laha saca ninkii saca lahaa baa dibiga cunugaas kale dibigu dhalo iskale ayo maasad bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawo channelka dab jacayl official magacaaga ku bilaabay maxamed xasan axmed waana ku dhawaad ayaa ku salaamaya mubaarak saal abdullah maxamed waxa ku weydiinayna su'aal baa ku weydiinayna waqtiga casir jaahiliga ma garana banaag waxa la wada siiyey laba nin ma gartay dabadeed laba nin la wada siiyey waxa dhacday in mid lagu yiri maalintii aad qabtay midna habeenkii gabadhii wiil bay dhashay labadii qabiil ee labada nin ka soo kala jeedeen baa isku qabsaday labada isaad ugu garnaqlayd labada qabiil wiilka isku haystaa waxaa dhalay ka maalintii qabay wiilka oo garanaya oo arki jiray ya arki jooga yarka dee kaya yarka marka waxaad leedahay waxa dhalay ka maalintii ka habeenkii baa dhalay ka maalintiina waa arki jiray dee ka habeenkii baa dhalay ka maalintiina yarkii baa arki habeenkii way maxaad ku sababayna ya ka habeenkii buu isticmaali jiray silaanta ايوه ما تصدق اي بسم الله الرحمن الرحيم كسو دو ولا channelka dab jacayl official adigu magaca ku bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم ku dhawaad walaal maarig channelka official dab jacayl magacaygu waa maxamuud maxamed xuseen maxamuud maxamed xuseen su'aal baan ku weydiinaynaa su'aashan ku weydiinaa waxa weeyaan waqtiga casir jaahiliga gabadh baa waxa la wada siiyey laba nin midna habeenkii buu qabay midna maalintii marka keebaad odhan lahayd labadii qabiil baa isku qabsaday markii wiilkii dhashay sidaad ugu garnaqlayd labada qabiil anigu waxaan ugu waran lahaa wiilkan waxa sii lahaa dee wiilkan ka habeenkii ninka la seexday gabadha la seexdo baan sii lahaa anigu maxaad ku sababaynay ninka maalintii waayo waxaan ku sababaynaa ka maalintii maalin la isku tago maalin ka habeenkii uu tagay habeenkii bismillaahir rahmaanir rahiim ku soo dhawo channelka dab jacayl official adigu magaca ku bilaabay bismillaahir rahmaanir magacaygu waxa la yiraahdaa maxamuud cabdullaahi su'aasha weydiinaysaa maxay su-aashu waxa weeye waqtiga casir jaahiliga baa gabadh waxa la wada siiyey laba nin midna habeenkii midna maalintii baa la yidhi baad u tegaysaa gabadhii wiil bay dhashay labadii nin ee nimanka qabiiladii ka soo jeedeen baa isku qabsaday wiilkii keebaad siin lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim ku hadlaya magaca afka dhalinyarada gobolka Sanaag waxa la weydiiyey su'aal casir jaahiliga casir jaahiliga dadku jaahilin bay ahayn labo gabadh loo tagay ninna habeenkii u tagay ninna maalintii shakhsi ahaantayda ama aqli ahaantayda haddii aan qiyaaso anu ka habeenkii baan siin lahaa maxaad ku sababayna waxaan ku sameeyay habeenkii iyo maalintii maxaa jiraba habeenkii maalintii dadku waxay qabsan karaan shaqooyin badan bay qabsan karaan laakiin habeenkii hawshu waa soconaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim wala ku soo dhawo channelka dab jacayl official adigu magaca ku bilaabay wala ku dhawahay magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Xasan Xuseen Cabdiraxmaan su'aal baan ku weydiinaynaa waqtiga casir jaahiliga ayaa gabadh waxa la wada siiyey laba nin isla marhaanta waxa lagu yiri midowna maalintii baad u tagaysaa midowna habeenkii wiil baa dhashay labadii qabiil ay ka soo jeedeen labada nin ayaa isku qabsaday wiilkii yara
keebaad siin lahayd sidaad labada qabiil ugu garnaqle bismillahi raxmaan raxiim haddaan firnimadeeda eego dee waxaan sii lahaa qofka dhashay kii habeennimada sii lahaa kii habeenkii waa sii lahaa maxaad ku sababeen waayo sababta waxaan ku sheegay maalinta cidna howlaha badan ma qabsato waayo maalinta waa iska kala shaqo tagaa habeenkun baa la isku yimaadaa maalinta waxaa adhiga iyo waxaas loo shaqo tagayo markaa habeenkii un baa habeenkun baan haa sii lahaa wiilkaas u dhalay kaaninkaas habeenkaa dhalay ay cabdiraxmaan bismillahi raxmaan raxiim walaal ku soo dhawo channelka dab jacayl official adigu magaca ku bilaabay walaalun ku dhawaay magacaygu cabdiqaadir axmed cumar cabdiqaadir su'aal baan ku weydiinaa su'aashu waxay ku odhanaysaa waqtiga casur jaahiliga ayaa waxaa gabadh la wada siiyey laba nin mid waxaa lagu yidhi maalintii oo dhan baad gabadha u tegaysaa midna habeenkii oo dhan baad la degan tahay dabadeeta wiil baa dhashay wiilkii labadii qabiilee labada nin ka soo kala jeedeen baa isku qabsaday keebaad adigu siin lahayd oo odhan lahayd kaasaa dhalay oo sidaad ugu garnaqleed labada qabiil dee waxaan siin lahaa ka habeenkii maxaad ku sababeen dee sababtu waxay tahay maalintii oo kale wax actioni ma dhaco dee micna micnaha oo la iskuma yimaado dadka hawleeleeyay marka kii habeenkii dee qof waliba hawshiisii buu qabsanayaa oo marka la isku yimaado marka action baa dhacaya marka saas waa kii habeenkii markaas ayo maasad bismillahi raxmaan raxiim walaal ku soo dhawo channelka dab jacayl official adigu magaca ku bilaabay magacaaga waxa weeye cabdiraxmaan kayse waan ku dhawaa cabdiraxmaan kayse su'aal baan ku weydiinaa waqtiga casur jaahiliga baa gabadh waxaa la wada siiyey laba nin waxaa lagu yidhi midna wana maalintii oo dhan baad gabadha u tegaysaayo adigaa qaba midka kalena habeenkii oo dhan adigaa qaba waqti baa loo kala sameeyey wiil yar baa dhashay wiilkaa keebaad siin lahayd labadii qabiile heerka labada nin ka soo kala jeedan baa isku qabsaday sidee baad ugu kala qaybin lahayd anugu haddaan waxaan sii lahaa islaantaa sii lahaa qaado jawaabta su-aashu waxay sax ku noqon doontaa in la siiyo qabiilla 100 halaad qabiilna la siiyo wiilka laftiisa qabiilna wiilka magtiisa la siiyo jawaabta su-aashuna sidaas ayay sax ku noqon doontaa